naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa maanta ku guuleystay Premier League. horeba waxaa loo ogaa inuu goor horeba sii qaaday Pep Guardiola iyo wiilashiisa, hase yeeshee maanta ayaa gacanta loo geliyay kadib markii ay ku soo idlaatay garoonka Etihad Stadium ciyaar xiiso badan oo dhex martay Manchester City iyo naadiga Huddersfield Town. waxaana ciyaartaasi oo lagu ku dhamaatay eber dhibco hore oo dheeraad oo ay Manchester City lahayd awoodeed lagu siiyay. waa markii ugu horeysay tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu qaado kooxdan koob. sanadkii hore ayuu hoyday isagoo koob la'aan ah, hase yeeshee sanadkan ayuu qaaday 2 koob, championkana uu gaarsiiyay meel aad u fiican. waxaana la rajaynayaa inuu waqtiga loo kordhiyo tababarahan, waxaana iyadana ku cusub oo kale kooxda ta inuu ka tagi doono ciyaaryahanka ruqcadaaga ee Yahya Toure oo 2 koob hore u qaaday, kanna uu noqonayo koobkiisii saddexaad u qaado kooxda Manchester City. Manchester City ayaa noqonaysa muddo 6 sano gudahooda naadigii ugu horeeyay qaada 3 koob oo Premier League. tan iyo xilligii ay la wareegay mulkiilaha wadanka Imaaraadka u dhashay. Manchester City oo imika ah naadiyada aadka u awood badan, lacagta badanna la geliyay, ayaa waxa imika u muuqataa inay noqonayso naadiyada ugu horeeya qaaradda Yurub. waxaana had iyo jeer imika aad u daneeya in lagu xayeysiisto wax ama shirkadaha caanka ah ee Adidas iyo waliba Puma. waxaana imika aad iyo aad loo sii daneynaya tan iyo markii uu yimi Pep Guardiola oo kooxda ka bedelay wax weyn kuna hogaamiyay qaab ciyaareed aad iyo aad uga qurux badan qaabkii hore ee lagu yaqaanay Premier League ama lagu yaqaanay Manchester City. waxaana uu u soo raray baa la leeyahay qaabkii tic-tac ahaa ee ay ku ciyaar jirtay kooxdii hore uu soo leeli jiray ee Barcelona. haddaan nahay bahweynta telefishinka caalamiga ee deegaan Channel TV-na waxaan u hambalyeynaa kooxda Manchester City ee ku guuleysatay sanadkan Premier League.